بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لما أمada Soomaaliyeed ee akhyaarta page-kayga ku xiran Facebook iyo YouTube ka soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan falaqeeyo laba qodob. Qodobka koowaad waa ceebtii fashilka ka dhacay hoteelka Alxayaa. Qodobka labaadna waa fashilkii ka dhacay maanta baarlamaanka aqalka Soomaaliyeed. Haddii qodobka koowaad ku hormaro, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. dhammaan inta ku dhimatay ilaa u naxariisto, ehelkooda ilaahay sabar ha ka siiyo. aad iyo aad ugu xunnahay ummad Soomaaliyeed oo iska masaakiin ah oo meel joogaan in oo dambi baarad lagu dilo. laakiin wixii ka dhacay hoteelka Alxayaa su'aalayaal badan aa dul yaalo. maxaa ka kow ah nimanka cadowga ah markay galeen hoteelka 2 saacadood ma loo gurmanin. markii loo gurmadana ciidanka haram cad ay yimideen waa laga soo saaray. 1000 guri baa la geeyey, anigoo ognahay ciidankaas haram cad inay tababaran yihiin dagaalka oo nimankan al-shabaab. waa su'aalka koowaad maxaa waa 2 saacadood ka bacdi loo gurmaday hoteelkaas. ciidanka la keenana markii la keenay ciidankii haram cad waa loo diiday, waa laga soo saaray. 1000 guri baa la geeyey. taasna waa su'aal labaad. su'aalka saddexaadna oo aad la yaabay muxuu yahay 5 nin in oo lala dagaaltamayay 26 saacadood. 26 saacadood in lala dagaaltamayay 5 nimood wala 10 nin, laakiin si la sheegay nimanka 5 nin ma ka badnayn. su'aalkii oo afaraadna muxuu yahay hoteelkaas nimankii qabsadeen oo saas dadku u galeen ilaa hadda meel ay ka baxeen ma la ogo. mana dhimanin. hadday dhinteen meydkooda la soo saari lahay, laakiin nimankii waa meel ay ka baxeen ma la ogo. nimankii al-shabaab ahaayeen cadowga Soomaaliyeed maxay sheegeen inay nimankooda raggooda ee baxeen. inta dhimatmaan qaarkood inta kale inay baxeen. taasna waa su'aal kale. maxaa laga rabaa dowladda ama hay-adaasha amniga inay sheegaan tafaasiilkaas ee ummadda Soomaaliyeed u caddeeyaan. shaki badanaa ka jiro, mugdi badanaa ku jiro. nimankaas waa lala shaqeeyey. nimankaas jaanis la siiyey inay dadkaas laayaan. nimankaas fursada la siiyey inay ummaddaas saas u xasuuqaan. ayadoo la badbaadi karo, oo la badbaadi karo ummadda iyo hantida meesha taala, ayadoo la badbaadi karo waa laga jiiday. laakiin waa wax lala yaabo. waxaasoo dhanna dowladda jawaabteeda laga sugaa. ku dheeraan maayo tafaasiilkeeda, arrintaas aad oo la socotiin. arrinta labaad aan raba inaa galo ama qodobka labaad waa maanta balantii maxay ahayd oo inoola dhaariya madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo markii la keenay maanta baarlamaanka u yimid inuu dhaartay ahayd. ninkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ahay, Cabdiraxmaan Cabaad oo u bixiyay aniga meeshuu fadhiistay cabaad oo ka bixi waaye. mooshin asiga iyo 2 xildhibaan iyo 3 xildhibaan ee soo qaadeen inay magaciisa hor istaagaan rabeen madaxweyne Farmaajo dhaaristiisa. wuxuuna ku andacooday in oo magaciisa mar walba siduu sheegi jiray in rag laga dilay, in oo raggaas macalkabood lagu aasay, in wiilal laga dilay. waa su'aal. wiilashaas oo la dilay raggaas la dilay Cabdiraxmaan Cabdishakuur asiga ma dhalay? waa maya. raggaas ehelkooda ilaa hadda ma la maqlooyo hadalkooda. Cabdiraxmaan Cabdishakuur meel walbo istaago, meel walbo fadhiisto, meel walbo oo magaciis ka qodbeeyo muxuu dhahaa raggaa laga dilay. raggaas ehel bay ka dhashteen, ehelkoodna waa lala xaaltamay sidii oo wasiir Isloo oo sheegay. laakiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur qadiyadaas muxuu ka dhigtay qadiyo siyaasi oo rabo inuu ku caano maalo. laakiin waa u noqon weysay. mar walbana xataa doorashadiisa
waa lii dilay waa lii xasuuqay cabaadkiisa meel walbo wax kale ma ka sheekeeyo rag baa liiga dilou dhahaa raggaas asigana ma dhalin iilkoodana mar horaa laga xaaltamay marka uu ku ciiboobay ceebtii kale meesha ka dhacda maxay tahay guddoonka baarlamaanka oo yiri mooshin ha laga qabto ama mooshinha ka yaalo dhaaristii madaxweyne farmaajo aadan madoobe maxaa u sheegaynaa maalintii la dhaarinaya xukuumadda 30 xildhibaan aa mooshin kasoo gudbiyeen 30kooda ma aqbalin muxuu yidhi mooshinkaas mid soconaya maaha maantana muxuu sheegay 11 xildhibaan inay mooshin kasoo gudbiyeen dhaaristii madaxweyne farmaajo fil akhiirna dadkii diideen ama oo markii la codeeyey 4 xildhibaanay ahaayeen 3 xildhibaan kale meelay ka yimideen aadan madoobe waa la weydiinaa ur ka dhigba waa 11 xildhibaan okay aadan madoobe maxaa uu sheegaa 30kii oo dowladda kasoo horjeedeen oo mooshin ka hor keenay maalintii la dhaarinaya xukuumadda maxaa hor istaagtay 4 xildhibaanne maxaa mooshinkooda u aqbashay taasna waa su-aal hortaalo aadan madoobe cabdiraxmaan cabdishakuurna maxaa u sheegaynaa cabdiraxmaanoo hadda ka hor maxaa tiri aniga qof walba wax ii geystay waa cafiyey maantane markaa aragta farmaajo xasaasiyada kugu kacday cafiskii aad sheegtay waa ilowday marka adaa kala hadlaysid siyaasiga uu cabaad badan 5 sano cabaadaysay doorashada maxaa keentana magaciisa 15 cod cabaadkaadana baarlamaankii hadda ku dhex wadaa maantana maxaa keentay 4 cod cabaadkaada ku keenay marka aada ugu xunnahay cabaadkaa iska dhaaf ragga waa isdilaan waana la dhaqmaa horaa loo socdaa haddii oo magaciisa oo raggaas oo kaa dhinteenne daday leeyihiin ehelay leeyihiin waana lala xaaltamay haddii ay dood qabaanna maxkamad waa tegi karaan adiga howl adig kuu taala maaha taasaa kuu sheegayna cabdiraxmaan cabaad intaasaa ku ekeeyey caawa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu